asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kaloo cusub. Magaalada Baab ee dalka Suuriya waxaa ku noolaa nin lagu magacaabo Subxi Kaxaad. Subxi wuxuu ahaa nin ganacsade oo taajir ah. maasha Allah, wuxuu ahaa nin fiican oo wanaagsan, nin dadka soo dhaweeya oo dadka kula dhaqma si wanaagsan, dadka faqiirada isaga ka hooseeya caawiya. maasha Allah. laakiin Subxi maalin waa la afduubtay oo koox burcad ah ayaa waxay afduubatay Subxi. kooxda markay afduubteen waxay familkiisa, walaalihiisa, xaaskiisa iyo awlaadiisa warsadeen lacag hadday rabaan in aabahooda la soo daayo, in ay lacagtaa dhiibaan. haddaysan lacagtaa dhiibin ay odaygan u dhammayn doonaan. adiga marka hore familkii way ka madax adeegeen in ay diidaan lacagtan oo waxay dhaheen lacag ma dhiibeyno. arrinkii waxay u sheegeen booliska. booliskiina wuxuu bilaabay in uu raadiyo odaygan taajirka ah, laakiin meel walba waa laga raadiyey, waa la waayey. kadib dadkan burcada ah waxay soo duween video oo ay cadaabayaan odaygan way garaaceen heer uu gaaray odayga in uu dhinto. marka video noocaas ayay soo duween, waxay u soo direen qoyskii markay arkeen odaygan oo sidaan loo galayo, oo isagan oday tacbaan ah waay, aan u adkeysan karin joogtaan iyo garaacitaankan badan, waxay garwaaqsadeen in ay lacagtan iska bixiyaan. kadib lacagtii ayay bixiyeen oo sidaa waxaa lagu soo daayay odaygii taajirka ahaa. waa la soo daayay, wuxuu dhex imaaday familkiisa iyo qoyskiisa. bilooyin kadib waxaa haddana mar kale la afduubtay odaygii. markan keligiis ma la afduuban, oo waxaa la afduubtay isaga, wiilkiisa Cabdalla iyo Cabdalla xaaskii. macnaha ayagoo beerta jooga ayaa waxaa la afduubtay odaygan Sabaax, wiilkiisa iyo wiilkiisa gabadhuu qabay. saddexdood ayaa markan la afduubtay. marka burcadii markan waxay dalbadeen lacag aad u tir badan, oo waxay dalbadeen $500,000, macnaha $500,000 ayay dalbadeen say u soo deeyaan odaygan, wiilkiisa iyo wiilkiisa gabadhuu qabo. kadib adeeradii waxay dhaheen macquul ma ahan, lacagtaa waa lacag aad u badan, in aan dhiibnana ma laga yaabo. oo waxay dhaheen mar walba waa la afduubanaa, lacag soo deynina waa la afduubanaa. waxay dhaheen arrintan arrin soconaysa ma ahan, waa sida game la ciyaarayo kale. markan way soo jeesteen, waxay dhaheen wax qaldan maxay tahay oo sabab mar walba odaygan loo afduubanayo, lacagtan ayna weydiinayaan, aan bixinayn la soo deynayo, haddana sabab aaday ugu magac adeegeen in ay lacagtan dhiibaan. burcadiina waxay sugaysaa lacagtii, in lacagtii loo geeyo oo haddana ay mar kale soo daayaan. macnaha way barteen markii hore la siin lacag ay soo daayeen, haddana waxay rabaan is lacagtii oo kale. sidoo kale sidii mar kale haddana waxaa arrintii la ogeysiyey booliskii waxay bilaabeen haddana in ay raadiyaan malahan. dadkii kale waxay qof walba adiga odayga yaqaanay wuxuu bilaabay in uu raadiyo, meel walbaa laga raadiyey, si kastaa loo raadiyey malahan. kadib 2 maalin 3 maalin markay xirnaayeen, waxaa la soo daayay wiilkan Cabdalla iyo xaaskiisa. oo burcadii waxay soo daayeen Cabdalla iyo xaaskiisa, laakiin odayga way reebteen. sababtay arrintaa u sameeyeen waxay tahay in ay qoyska tusiyaan in aysan odayga dhib u geysanaynin, keli in ay rabaan lacagta. waxay dhaheen waa kay wiilkan gabadhan waa soo daanay, caddeen intaana idinku filan. marka burcadii waxay sugayeen lacagta in la siiyo, laakiin familkan way ka madax adeegeen inay lacagtii bixiyaan. haddana mar labaad waxay burcadii soo direen video ay ku cadaabayaan odaygan, oo sidii hore si ka daran ay u garaacayaan. macnaha waxay rabaan markii videogan la arko in familkii ay haddana mar kale lacag kale soo dhiibaan. kadib booliskii ayaa wuxuu bilaabay inuu dhaqaaq sameeyo, wuxuu wada hadal la sameeyey burcadan, oo waxay dhaheen lacagtiin waa la idin siinaa, odaygaas waxba ha yeelina, iska daaya. marka booliska waxay rabaan in ay qayaanaan oo ay si xeeladeysan odaygan u soo daayaan. adiga booliskii waxay arrintan daba socdaan oo ay marba si u dhigaan. ugu dambeyn waxay ogaadeen burcadan in uu ku jiro wiil lagu magacaabo Shacbaan.
Shacbaan Bakuur iyo waxaa kula jiray walaalkiisa Cabdalla Bakuur. Marka Cabdalla iyo Shacbaan waxay ahaayeen laba walaalo, waxayna ka tirsanaayeen burcadaan oo odayga afduubtay. Kadib waxaa la ogaaday labadan wiil Shacbaan iyo Cabdalla in ay la dhashteen odaygan la afduubtay xaaskiisa. Ma fahanteen? Odaygan la afduubtay oo Sabax la dhahay xaaskiisa ayaa labadan la dhashteen. Marka labadaasna waxaa la ogaaday in ay bal dhashteen ninkan xaaskiisa. Waayahay labadan nin oo familka ka tirsan arrintan maxaa soo geliyay? Adiga markii la soo wareystay waxay sheegeen hogaamiyaha burcadda oo waxay dhaheen waxaa jira nin lagu magacaabo Cayaash al-Albani oo waxay dhaheen Cayaash ayaa kooxdan madax u ah, isaga ayaa maamul waa sidaan iyo sidaan. Booliskii waxay socdaan, waxay soo qabteen Cayaashkii oo kooxda hogaaminayay ayaa la soo qabtay. Isagana waa la wareystay oo arrinkii wax laga weydiiyay. Kadib waxaa soo baxday in kooxdan uu jiro qof kaalmeynay in waxaan ay sameeyaan, lacagahan ay dalbadaan, odaygan ay afduubtaan. Macnaa waxaa jira qof hagay arrintooda dhan, sidaan sameeya, odaygan afduubta, videogan ka duuba. Waxaa jira qof iyaga dhan hagay. Marka qofkaas yaabay, qofkaas qof kale ma ahan, waa odayga wiilkiisa. Macnaa odayga la afduubtay wiilka uu dhalay ayaa arrintan ka dambeeyay, waana wiilkii isaga la afduubanayay oo lagu magacaabo Cabdalla. Marka arrintan waxaa ka dambeeyay oo Cayaashkan iyo Shacbaan iyo isku soo wacay kooxdan sameeyay waxa waaye wiilkiisa Cabdalla. Way sheegeen marka waxay dhaheen anaga arrintan waxaa ka dambeeyay Cabdalla ayaa na hagaayay, isaga ayaa qorshihii hore odayga oo lagu afduubanaya dejiyay. Tan lamaadna isaga ayaa dejiyay oo in lacagtan waxaan la soo qaaday isaga ayaa waxaan rabay, inagana isaga ayaa xogaa lacagna siiyay, isaga ayaan u shaqaynaa oo arrinkan ayay sheegeen. Cabdalla ayaa la soo qabtay oo Cabdalla waxaa la weydiiyay hay maxaa ka jira arrintan Cabdalla, dadkan adiga ku soo tuhmeen oo wax walba adiga ka dambaysa la sheegay Cabdalla arrintan maxaa ka jira? Cabdalla wuxuu dhahay dadkan been ay iga sheegayaan oo arrintooda ayaa fashil noqotay, iyaga ayaa la ogaaday. Marka waxay rabaan u dhahay in aniga wax walba ii saariyaan, in ay aniga dush wax walba iga saariyaan oo eedana ay igu soo wareejiyaan. Wuxuu dhahay aniga waxaan ogahay malahan. Sidoo kale aabiis wuxuu dhahay wiilkayga macquul ma ahan inuu arrintan sameeyo, mana ka suurtooda. Hooyadiina way ku raacday oo waxay dhahday maya wiilkayga arrintan maba sameyn karo. Waxay dhahday macquul walaalahayga Shacbaan iyo Cabdalla macquul waaye dhahday in arrinkan ay sameeyaan, laakiin wiilkayga maya arrintan ma sameyn. Sababta ay waalidiinta hadalkan u dhahayna waxay tahay wiilkooda Cabdalla. Saaxiib fiiriya, Cabdalla laba Cabdalla waaye. Cabdalla mid waxa odayga dhalay, midna waxa waaye wuxuu ku jiraa dadkii wax afduubanayay. Marka Cabdalla kale isku khalday laba Cabdalla waaye. Marka waalidiin sababtay u dhahayeen wiilkeena anaga ma ahan waxaan ma ka suurtooda waxay tahay cunugan aabihiisa wuxuu u diiday malahan, wax walba siinay, lacagta u baahdo wuxuu rabo farta ayuu ka saarayay. Xitaa odayga cunugan wuxuu u sameeyay meel uu ku ganacsado oo intaasoo $1,000 ugu dhisay si uusan cunugiisa wax ugu baahan, noloshiisa u dibiro maadaama xaas uu leeyahay. Marka odayga wuxuu raacay cunugayga waxaan u diiday malahan, wax walba siiyay, mana ka suurtooda in uu arrintan sameeyo. Adiga waxaa la soo daayay Cabdalla, waxaana maxkamad la saaray ragayga sidii Cayaash iyo Shacbaan iyo kulligood waxaa la saaray maxkamad. Cabdallana waa la soo daayay oo waxaa la bis waay dambi lagu hayo. Sababtan waxay ahayd booliska mehen cadeen cad oo ay Cabdalla ku xirtaan. Sidaa ayaa waxaa lagu soo daayay Cabdalla. Laakiin ficnaan laheeda in aan la soo daanin Cabdalla. Sababtoo ah saaxiibayaal, arrinka ay raggan sheegayaan waa sax. Cabdalla ayaa ka dambeeyay in aabihiis la afduubto. Isaga ayaa qorshahan dejiyay. Isaga ayaa dadkan dhahay aabahayga afduubta, lacagta warsada, adiga wax walba wiilkan ayaa ka dambeeyay. Laakiin waalidiintiisa ma fahmin, booliskana cadeen ay ku xiran way waayeen. Sidaa ayaa lagu soo daayay Cabdalla. Kadib Cabdalla markuu wixii bari ka noqday oo arrintii banaanku ka istaagay,
marka cabdalla wuxuu u baahday lacag. ma ogi lacagta wuxuu ku sameynaa nin inuu dukaan intaasoo $1,000 lagu sameeyey oo ganacsi loo sameeyey, haddana lacagtan kale odayga wuxuu ka rabo ma ogi. marka cabdalla wuxuu rabooday lacag. cabdalla wuxuu u maleynayay aabihiis inuu yahay qasnad lacagta sameyso ayuu u haystay. cabdalla lacag ayuu rabooday, xoogaa waxaa ku adkaatay in uu lacag helo. marka wuxuu dhahay aniga maxaa igu kalifayay mar walba in aan qorshe keeno inaan aabaheyga afduubto iyo waxyaabahaas maxaa ii geeyay dhahayo baxarkaasi waxyaabahaas. wuxuu dhahay ka waran haddii aan odaygan qabto isaga dhan aan u dhameey. macnaha wuxuu ka wadaa ka waran haddii aan odaygan dilo, kadib markaan dilana oo aan dhaho odaygan dad ayaa afduubatay, markii la raadiyana la waayo, sababtoo wuxuu dhahay wuuba dhintay, qof dhinteen ayaa helayo. maya niyow odaygan u dhameey, kadibna lacagihii iyo wixii isaga raaxayso adigoo aan qofna ku weydiineyn. ilan xoogaa wuxuu dhibsadaa umaleynaa kastoo odayga lacagta weydiinaa iyo waxyaabahaas. adiga cabdalla wuxuu go-aan ku gaaray in uu aabihiisa dilo. ugu dambeynna aabihiisa ayaa wuxuu ugu yimaaday gurigiisa ayuuna ku dhex dilay. maca salaama cabdalla wuu u dhameeyey aabihiis. kadib markuu aabihiisa dilay oo kawkasi muxuu sameeyey marka wuxuu soo qaatay maadooyin oo waxyaabo adiga fiiri marka meedka lagu shubo ama meedka dhalaalay iyo biyo kulul iyo waxyaabahaas ayuu soo qaaday. aabihiis ayuu meel barkad saan ugu riday, guriga dhexdiisa waaya. markuu ku riday marka wuxuu ku aadiyey meedkiisa meesha ay ku aadan tahay boosneerta guriga. markii boosneerta wixii ay ku aadan tahay ayaa meedka meesha ayuu dul dhigay. waxyaabahan oo adiga markii qofka jirka bini'aadamka lagu shubo isaga dhan uu kala furfurmaayo, waxyaabahaas uu ku shubay oo biyo kulul ku daray ilaa uu meedka oday ka dhalaalay oo saas u kala baxbaxay. adiga xibin ayuu noqday. marka meedkii wuxuu ku shubmayay boosneerta ayuu sidaa uu sii shubmayay. marka ma ogi dadka guriga qof joogi ma lahan miyaa odayga guri kaloo cidla moo ku helay, allahu aclam. laakiin sidaa ayaa dhacday in meedka odayga inuu kusii daato meel boosneer ah oo guriga boosneer inuu saas ugu daato oo isagan gabal u go-ay ayuu meesha ku shubmayay. marka sida caadiga ah waa naqaanaa meedka wuu uraa. si kastoo la yeela si kasta u qarisa adiga meed ma qarsoomayo oo mar walba in la duuga ma ahne, laakiin haddaa meel ku daadisi iyo haddaa gogoys meel agti mar walba wuu uraa. marka dadkii xaafadda ka dhawaa oo meelahaas deganaa iyo wadada iyo dadkii marayay, markii qofkii wadadaas soo mara ama gurigaas agtiisa qofka soo mara ayaa mar walba wuxuu urinaya ur aad u xun. qof walba urkaasoo urinaya qofkii soo mara dadka xaafad degan. adiga urkaas aadaa loo dhibsada. marka la soo mara waxaana soo uraayo. marka dad qaara waxay ogaadeen in waxaan soo uraayo uu yahay meed bini'aadan. macnaa wax bakti dhintay waa la yaqaanaa iyo waxyaabo kale, laakiin waxay dhaheen waxaan meed waaye. kadib arrinkii waxay u sheegeen booliska oo iyaga faragashan karaan in ay baxaan oo urkan ay dabagalaan oo ay baaraan. cid samayn karta ma lahan, sababtoo hadhow waxaa lagu dhihi karaa adigaa dilay, adigaa sidaan yeele. marka qof faragashtay ma lahan. waxay arrinkii u gudbiyeen booliskii way yimaadeen. waxay dalbadeen kuwa meedka baarbaaro ayay dalbadeen, iyagana way yimaadeen. waxaa la bilaaba marka in agaaraas dhan la baaro. marka sidii urkii loo raacayay loo baarayay urkii loo raacayay toos wuxuu geeyey guriga odayga ayay tageen. markay saas u tageen oo ay sii dhawaan adiga urkii raacayeen oo ay sii dhawaadeen waxay arkeen meedka odayga oo sii dhammaaday oo waxaa ka haray lafa yaryar bis. sababtoo ninkan wuxuu u adeegsaday waxyaabo meedka ismarkii dhalaalanayo oo aad macnaha u baabi'inayo. marka waxay ka soo gaareen lafihii iyo waxyaabahaas oo ka haray meeshii dhan oo ur ah. arrinkii wuu fashilmay. kadib booliska markay baaritaan sameeyeen waxay ogaadeen wax walba inuu ka dambeeyay wiilkiisa cabdalla ayaa la soo qabtay oo arrinkii ayaa wax laga weydiiyey. kadib cabdalla jixinjix la'aan arrinkii dhan wuu qirtay oo wuxuu qirtay inuu isaga dilay aabihiisa sidaan u dilay. adiga wax bayaan hadalka idin dheereen.
cabdalla waxaa la soo saaray maxkamad oo maxkamadiisa mala daahin. isla markii cabdalla waxaa la soo saaray maxkamad oo waxaa lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. ilna dileeba ahayd mooga 25 sano waxay ugu xukumeen, laakiin ilaa ay hadda booliska weli way ku raad jiraan odaygan kiiskiisa. oo xitaa cabdalla oo 25 sano lagu xukumay weli arrintan way ku jiraan, oo arrintan kiiskeeda lama xirin, oo weli waxaa socda baaritaano kale. dabcan waxaa laga yaabaa in haddana waxyaabo kale iska soo baxo, oo iska ogtahay markii dil la geysto waxaa si kale u soo baxo, ma fahanti. waa arrin aad u falxun in aad aabahaaga adeeg gacantaada ku disho, weliba lacag darteed. mararka qaar lacagta waxay kul aadeen meel dheer, oo waxay kuu kalifee in aad nolosha dhaafiso qof aan mudneen. hada fiiri, ninkan wuxuu noloshan dhaafiyay aabihiisa isaga dhalaya ayaa wuxuu u dilay lacag darteed. keliya sida aabahan markuu dhinto kadib oo lacagtan isaga baashaala bis, intaasoo aabihiisa dhan u dilay. markiina waa ogeed in aabihiisu afduubtay, jirdil loo geystay, odayga asiba waayeel ah oo aan jug u adkeysan karin, oo waxaas ku sameeyey, intaasoo lacag ka qaatay. marka wiilkan waxaan dhihi lahayn kuley ma duceysne, laakiin allah soo hanuuniyo. wayba dhacday, waxaan wax laga qaban kara ma lahan. marka insha allah allah soo hanuuniyo. markaan isagaa 25 sano xabsi ku xiran, qof 25 sano xabsi kusoo qaateena wax u haray ma lahan. wiilkan adiga da'diisa 21 meelahaas ahayd, 25 sano ugu dar adiga waxaa waaye 45 meelahaas, 50ka wax yaraa ugu dhiman. marka hadduuba sii noolaado uu banaanka soo baxo, insha allah allah ka dhigi qof oo fiican oo wanaagsan. waxaan ilaahay u rajeynaynaa in uu dambi dhaafo, oo duceyn karnaa maane, wax kaloo aan dhihi karna ma lahan. odaygan sabaxna allah u naxariisto, oo qabrigiisa allah u waasiciyo, maalinta qiyaamana meesha fiicneed allah geeyo insha allah. marka saaxiibayaal, muuqaalkeena ama qisadeena caawa inaga inta aynu muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono. amaano alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.